tiri markaa maxaa kugu dhacay bal ii waran waxaan ku yiri xaafadeedu waa noocan sheekada dhan baan uga waramay dhibkana haysta caqabadaha culayska rafaadka iyo nolosha aan ku jiro iyo murugta ay haysata sheekadii markaan u dhameeyay Siham waxay tiri anigu waa wadiga nasiib badan tahayba waayo waxaad leedahay aabo marna ha idin dilo marna ha soo shaqeyn waayo marna ha soo shaqeey aabaabad leedihiin oo guriga idin jooga Soomaha anigu aaba ma lihi aabahayo nool ba waxaan ku soo kornay agoonnimo hooyaday oo kaliya ayaan korisa aabaheena wuu nool yahay adduunyada xaadir buu ku yahay waligiina hal falis yani nus dollar uu leeyahay maanaan cunin wuuna nool yahay adduunku sidaa u soo taagan yahay waxaan ku yiri marka maxaa dhacay oo maxaa hooyadiin kaligeed ay idin korinaysaa aabihiin oo nool waxay tiri markaan yareereyn bay aabahan iyo hooyadana kala tageen aabana waa soo sheeganin hooyo furay anagana wuu furay khalaas nama soo salaamo noo ma yimaado nama yaqaano hooyaday oo kaliya un baa noo shaqayso noo rafaada anigu markaan soo gaaray da'da 20 sano hadda waxaan jiraa bay tiri markaas Siham 23 sano munana waa 20 jir 3 sano ka weyn tahay Siham waxay dhahay markaan soo gaaray da'da 20 sano waxaan guursaday ninkii wuxuu noqday mid bil walba 2 jeer la xirayo bishii haddaan hal mar la xirin 2 jeer baa la xiraya ama 3 jeer xabsiga waxa wad u malaysaa gurigii aabihii inuu yahay waxaan wada joognay ninkan muddo ilaa 2 sano hal sano dhameystiran xataa si caadi gurigeyga uma aan wada joogin inta ugu badan xabsi buu ku jiray waa la xiraa waa la soo daayaa waa la xiraa waa la soo daayaa ugu dambeyn waa la xiray maxkamad inta la saaray baa 7 sano lagu xukumay ana waan iska furay waxaan ku soo noqday gurigeygii wax ilmo ahana isumaanaan dhalin 2 sano wada joognay gurigeyga markaan ku soo noqday markaan arkay hooyisay u shaqeynaysa iyo rafaadka caruurteeduna waxay ka kooban yihiin 6 hal gabadh waa la qabaa meel bay degan tahay iyo aniga iyo 4 iga yaryar afarta iga yaryar ilaa aan hooyo u baan noo shaqeyn jirtay hadda anigu marka waxaan go'aansaday inaan hooyo la shaqeeyo hooyo marka maxay ka shaqeysaa wax yar oo khudaariye wax bay suuqa ku iibisaa reer iyagu laftirkoodu iska dan yar waay Siham waxay tiri marka anigu waxaan u shaqeeyaa guryaha lama seexdo laakiin subaxii baan u soo shaqo tagaa guryaha dadkaasaan u soo shaqeeyaa qaar macaamiil qaar cusub galabkiina waan rawaxaan oo lacagteeda wato waxaan ku noqdaa guriga yani khadaamad oo ku shaqeynaysa yoomiye waay marka dad aan u shaqeynayay shalay baa waxay ii galeen si xun oo bini'aadanimada ka baxsan maanta markaan soo shaqo tagay shaqo dhan inaan qabto igama qabaninba marka beertan aan iska fadhiistay beertan waxaan u soo fadhiistay murug darteed yani dadkii shalay aan u shaqeynayay say ii galeen nolosheedu say tahay murugta iyo dhibkan haystaan la murugaysnaa halka anoo iska fadhiyo fikiraya yaan ku arkay adoo halka ku fikirayo ooyay marka waxaan sir gabadha dhalinyarada balan waxaan ka oohinaya aad u tagtid labadeediba waxaan noqonay isku mid iyo isku xaalad waxaan ku dhisay ku galeen dadka shalay aad u shaqeynaysid waxay tir shaqo badan inta ii qabteen dad casuumad leh ahaayeen inta ii dirsadeen shaqo xadka ka baxsan oo qabtay dee shaqo aanan qaban karin saan isu lahaa dadka waxaanoo shaqo ku dirsanay adoo faraxsan bay ku direen lacag fiican bay ku siinayaan bay waxay isiiyeen wax yar oo shilimo shilimo yani shaqadii aan qabanayay 100 meelood hadii loo qaybiyo xataa hal meel xaqeed inay siinin markaan ku xanaaqeen ku yiri maxaad waxan ii siinaysan waxa la igu yiri nooga bax iridka sida qashinkii oo kale inta la soo taqaantiqay banaanka la igu tuuray albaabka la iga xidhay shilimo xun oo yar oo biro ahna saas la igu soo tuuray shalay dhan waa shaqeynay shaqo aan weligeey qaban baan qabtay wax lacagana kama helin maanta markaan soo shaqo tagayn halkan marayo baan isiri maxaad ka shaqeynay waxba ha shaqeynay iska badhaaf shaqada dhan waxaan ka fikiray marka bal wixii aan qaban lahaa hadaan shaqeynin oo murug baan meesha la fadhiyay abaar baan aniga Siham halkii sheekaysanay waan israacnay beerti baan ka soo tagnay waxaan soo fadhiisanay meel beerta agteeda oo jardiin oo kala ahaan fadhiisanay hadana waan sii sheekaysanay anagoo sheekaysanayno meeshii fadhina waa waxa saas noo soo hormaray nin wata gaarigii agteedu istaagay halkaas oo kulu istaagay abaar buu taagnaa gaariga hadaan saas u fiirinay wuxuu u egyahay gaarigu ama uu u muuqdaa gawaarida dadka hantiilayaashii ay leeyihiin oo gaari qaali ah qofka wata qof taajir inuu yahay iska cadahay waay waxa wato gaariga ku dhex jira marka oday duq waayeel ku dhex jira qof weyn ah abaar markuu meesha taagnaa Siham waxay tiri waxaan u malaynayaa inuu lunsan yahay oo meelahan intuu yimid horta waxaan isweydiinay xaafadaheen insan dadka faqeerinta ay degan yihiin maxaa keenay qofka sidan u yaala qofkan wuxuu u egyahay qof hantiile oo qaniya Soomaa xaafadahan talo muxuu ka soo doonay Siham waxay tiri bal waan weydiinaya wuxuu raadinay waxa laga yaabaa inuu meel raadinayo meeshii garan la yahay uu u baahan yahay wax u tilmaama inuu u baahan yahay baa laga yaabaa
sihaam odaygii bay ag istaagtay daaqadii wuxuu saas muraayadii buu dajiyay daaqada markaasaa waxay tiri khayr